booliiska hindiya ayaa sheegay inaan la filayn inay jiraan waxdad ah oo ka badbaaday diyaaradda ee indiya oo ku dhacday xaafad ka tirsan magaalada axmedabad waxyaruun kadib markii ay kacday waxaa saarnaa in ka badan 240 qof waxaana ahayd diyaaradda nooceeda loo yaqaan boyan menisay dreamliner oo u socotay magaalada london waxaa sidoo kale jira dad ku sugnaa dhulka ah oo ku waxyeeloobay kadib soo dhicitaankeedii mas-uuliyiinta caafimaadka ee khazana waxay sheegeen in ugu yaraan 26 falastiiniyiin ay dhinteen kadib dhowr dhacdo ay ku jireen dad isku dayayey inay helaan gargaar raashina dhimashadan ayaa noqotay kuwii ugu dambeeyey taniyo markii khaza uu gaadhay mashruuc bini'aadannimo oo ay taageerayaan maraykanka iyo israa'iil hay-adda IAEA ee qaramada midoobay u qaabilsan kormeerka nukliyeerkuna waxay sheegtay in iiraan ay jebisay waajibaadkeeda la xidhiidha xakamaynta faafinta ama tarminta hubka nukliyeerka golaha IAEA ayaa meel mariyey qaraar ka dalbanaya tehraan inay sharaxaad ka bixiso walxo nukliyeer ah oo laga helay goobo aan hore loo shaacin booliiska australia ayaa iyana sheegay nin loo haysto inuu dilay 10 qof oo ku sugnaa iskuul ku yaal magaalada grass talaadadii uu ahaa qof goodoonsanaa oo xaalad keliinimaha ku noolaan jiray kaasoo aad u ciyaari jiray ciyaaraha toogashada iyo dilka khuseeya ee internetka laga ciyaaro ninkaas oo isdilay ayay boolisku ku sifeeyeen qof doorbidayey dunida dhabtaa inuu ka huleelo iskuullada faransiiska ayaa daqiiqad aamusnaan ah sameeyey kadib markii wiil 14 jir uu toorey ku dilay kaaliye macallin waxbarasho talaadadii kiiskan ayaa sare u qaaday walaaca ku saabsan ciyaaraha muuqaalada rabshadaha wata kuwaas oo u ciyaari jiray eedaysanahanina booliiska caasimadda kenya ee nairobi ayaa sunta dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dad mudaharaadayey kuwaasoo ka cadhaysnaa geerida qoraa ama bloga ku jiray gacanta booliiska baadhaha dowladda ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in albert ojwang la garaacay oo dhaawicii ka soo gaadhay uu ahaa wixii dadejiyey dhimashadiisii wasiirka difaaca jarmalka ayaa ku sugan magaalada kiev si uu ugala hadlo taageero hub dheeraad ah oo ay siiyaan ukrain jarmalku waa taageeraha labaad ee ugu weyn ukrain marka laga yimaado maraykanka shirkad lagu magacaabo Poundland oo Britain ku taalana taasoo caan ku ah iibinta alaamo qiimo ahaan 1 pound ah ayaa lagu iibiyey isla qiimahaas shirkaddan ayaa wajahaysay hoos u dhac ku yimid iibkeeda Poundland waxay sidoo kale iibisaa alaabo qaali ah ugu dambeynna qaramada midoobay ayaa ka digaysa in qaxooti badani ay ku sugan yihiin xaalad gaajo xiriya qaxoontiga kadib markii ay dhaceen jaris ballaaran oo lagu sameeyey deeqdii dhaqaale ee ay bixin jireen maraykanka iyo deeq bixiyayaasha kale madaxa hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay Philippe Grandi ayaa u sheegay BBC-da in tirada qaxootiga iyo dadka barakacaya ee laban laabmeen 10 sano ee la soo dhaafay ayna korodhayn ka badan 120 milyan halka lacagta ay hay'addu hesho aysan waxba iska bedelin Grandi waxa uu sheegay in shaqaalaha gargaarka lagu qasbay inay gaadhaan go'aano adag sida in la dhimo raashinka ay helaan qaxootigu wuxuuna sheegay in xiriyo ku yaala qaar ka mid ah dalalka Afrika dadku ay helaan kaliya ku dhawaad 30% raashinkii ay u baahnaayeen maalinkii Mr Grandi wuxuu intaas ku daray in Afrika ay tahay qaaradda ugu daran ee dhibaatadani sidaadka ay u taabatay nimcan aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dambiil oo inala socodsiinayay wararka caalamka ee BBC-da hagaag dhegeystayaal aan ku bilownay sidii wararka caalamkaba ku maqlayseen diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Air India la yidhaahdo nooceeduna uu ahaa Boeing 787 Dreamliner ayaa waxa ay ku dhacday magaalada la yidhaahdo Ahmedabad ee dalka Hindiya diyaaradda tan oo la sheegay in ay siday in ka badan 240 qof oo rakaab ah kuna sii jeeday magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa soo dhacday kadib wax yar uun markii ay ka kacday gegada diyaaradaha ee magaaladaasi Ahmedabad diyaaradda tan oo haddaba sumadeedu ay ahayd AI 171 ayaa waxa ay u muuqataa mid ku dul habsatay deegaan ay dadku noolaayeen waxaa haddaba istuudiyaha igu heliya Axmed Beder iyo Xasan Sheekh Cumar oo si dhow ula socday dhicitaanka diyaaraddaasi iyo wararka la xiriira Axmed haddii aan adiga kugu bilaabo
goormay diyaaraddani dhacday xaggeese ku dhacday bal faahfaahinihii ugu dambeeyey nimcanow horta faahfaahinta laga heli karo diyaaradani weli waa mid aad u kooban islamarkaana wararka waa iska soo dabadhacayaan marba marka ka dambeysa ilaa iminkii ta la ogyahay haddii aan ku bilaabo taliyaha booliska axmedabad ayaa b b c da u sheegay in 204 meyd ah laga soo saaray goobta shilka uu ka dhacay lama oga in 240 qof ay yihiin kuwii diyaaradda saarnaa amaba inay ahaayeen dadkii ay ku dul dhacday oo goobtaasi iyagoo markaasi ku sugnaa taliyaha booliska ee magaaladaasi axmedabad ee dalka hindiya ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaraddii aya indiya ee ku burburtay xaafad dad ay degan yihiin oo ku taalla halkaasi taliyaha waxa uu dhanka kale sheegay in 41 qof ay ku dhaawacmeen islamarkaana dhaawacooda imika loo qaaday isbitaalada halkaasina lagu dabiibayo waxaa saarnaa diyaaraddani in ka badan 240 qof oo markaasi rakaab ah oo markii ay dhacaysay sida uu rikoodhka amaba diiwaangelintu ay xaqiijinayso waxayna ahayd nooca byomka loo yaqaano oo iyadoo halkaasi markaasi boyomka loo yaqaano 787.8 dreamlinaga loo yaqaano taliyaha booliska ayaa waxa uu sheegay sidoo kale inay jiraan khasaaro dhimashiya dhaawac ah oo ka dhacay goobtii ay diyaaraddaasi ku dhacday diyaaradda ayaa la sheegay inay ku dhacday goob markaasi lagu barto caafimaadka halkaasi oo iyaduna weli khasaaraha rasmiga aan la soo sheegin waxayna diyaaraddani ku sii jeeday magaalada london waxaana muuqataa in dad badan ay ku dhinteen diyaaraddani ma cadda ilaa iminka sababta dhalisay burburka diyaaraddani waxaana baaraya laamaha kala duwan ee dalkaasi hindiya dowladda hindiya iyo dowlado kale ayaana dabcan ka hadlay arrimahaasi waa tahay axmed beder waa mahadsan tahay haddii aynu eegno oo aynu kusii soconno diyaaraddaasi wax rasmiga oo laga ogyahay ma jirtaa diyaaradda qudheeda diyaaradda marka la eego goorta ay dhacday horta markaa ku bilaano waxay ku dhacday xaafad lagu magacaabo magani nagar booliska waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee n i in ay ku dhacday goob lagu barto dhakhtarnimada mid ka mid a haweenka goobta ku sugnaa ayaa wakaaladaasi u sheegtay in wiilkeeda uu ka badbaaday oo dabaq goobtaasi u deganaa uu ka booday halkaasi oo sidoo kale dhaawaca wiilkeeda soo gaaray duulimaadka aya indiya ayuu ahaa oo tirsigiisu ahaa ai 171 waxa uu ka ambabaxay gegada diyaaradaha ee axmedabad waxauna saacaddu ay ahayd 7 saac iyo 39 daqiiqo markay ahayd ee diyaaraddaasi kacday wakhtiga maxalliga ah sida ay sheegtay shirkadda diyaaradaha indian air waxaa lagu waday in ay ku degto london saacaddu markay tahay 12 iyo 5 daqiiqa ayaa lagu waday inay markaasi halka ka degto diyaaradda ayaa burburtay xilli ay meel u dhow isla magaaladaasi axmedabad ay duulaysay halkaasi oo ay ku burburtay sida laga soo xigtay mareegaha la socodka duulimaadka ee lagu ogaado signalka diyaaradda ayaa signalku ka lumay waxyar kadib ama daqiiqado kadib markii ay garoonka ka soo duushay xogta la socodka duulimaadka ayaa waxa ay luntay markii diyaaraddu ay ku duulaysay joog dhan ilaa iyo 190 mitir markii ay kor u kacday ayaa la waayey xiriirkeedii diyaaraddu waxa ay siday dad badan islamarkaana waxay ka mid ahayd diyaaradaha ugu waaweyn ee diyaaradaha aya indiya ay markaasi ka howlgalaan waa tahay xasan sheekh cumar oo isna si dhow ula socday arrimaha la xiriira burburka diyaaraddaasi xasan dadkan la sheegay in 240 ay ka badan yihiin oo rakaabo oo diyaaraddaasi saarnaa ma la yaqaanaa jinsiyadahooga iyo meelaha ay ka yimaadeen markoodii hore nimcaana waad mahadsan tahay guud ahaan diyaaradda waxaa saarnaa 242 qof 10 shaqaalaha oo diyaaradda ayay ahaayeen labana waxay ahaayeen 2 duuliya marka 12 qof waxay ahaayeen shaqaalihii diyaaradda si guud 230 kalena waxay ahaayeen dadkii kale ee rakaabka ahaa dadka dhintay waxaa ugu badan dalka hindiya oo diyaaradda iska lahaa islamarkaana ay dalkeeda diyaaraddaasi ku burburtay dadka hindiyaanka ee halkaasi ku dhintay ilaa hadda tiradooda la shaaciyey waxa ay gaarayaan 169 qof oo muwaadiniin hindiya ah tirada kusoo xigta waxay u dhasheen dalka ingiriiska 53 qof ayayna gaarayaan waxaa sidoo kale jirta ninka la yiraahdo 7 qof oo u dhalatay dalka Portugiiska
oo Bortuqiis ahaa iyo hal qof oo dalka Canada ka soo jeeda. Marka intaasi oo qof ayaa saarnaa diyaaradda. Inta ugu badanna waxay ka soo jeedaan dalka Hindiya. Tirada ku xigta waa Ingiriiska. Tirada kalena waa Bortuqiiska iyo hal qof oo Canada ka soo jeeda. 12 qofna waxay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda oo laba duuliye ahaayeen. ugu dambeyntii xasan maxaan kala soconnaa ilaa iyo hadda qayladhaan kala duwan baa soo taraysa dalka diyaaraddan iska lahaa ee waddankiisana ay ka kacday ee Hindiya waa ay hadleen mas-uuliyiintoodu. Ingiriiska oo ay diyaaraddu ku socotay muwaadiniintiisa si aad sheegtayna dad badan oo ka mid a ay saaraayeen iyaguna waa ay hadleen hadalladoodii bal haddii dhegeystayaasha u sheegto. Nimcaanow intaanan dadka caalamka ama madaxda caalamka ee ka hadasha aanu u gudbin waxaa xusid mudan in diyaaraddu halka ay ku dhacday laleeyahay waxay ku dhacday goob waxbarasho oo arda badan ayaa halkaasi ku dhaawacantay oo loo qaaday laleeyahay isbitaalada aagga ay diyaaraddu ay ku dhacday ee magaalada Ahmedabad. Waxaa marka la sheegayaa in khasaaruhu halka uu iska soo tari karo oo booliiska iyo laamaha ama waaxaha kala duwan ee halka ku mashquulsan waxay sheegayaan in tirada dhimashada ee halka ka dhalan karta ay badan karto mar walba. Markaan usoo laabana su-aasha aad weydiisay ee dadka ka hadlay waxaa ka hadlay dalalka dadku ay u dhasheen dalka Ingiriiska, Hindiya, Bortuqiiska, Canada dhammaan way ka hadleen. Ra-iisul wasaaraha Canada waxa uu sheegay inay aada uga naxeen warka ka soo yeeray Hindiya iyo diyaaraddaasi dhacday dadka badan ay ku dhinteen. Ra-iisul wasaaraha sidoo kale dalka Bortuqiiska isaguna uu ka hadlay ninka la yidhaahdo Luis Montenegro. waxa uu yidhi aad ayaan uga xumahay inagoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dowladda iyo guud ahaan dalkaasi waxaan tacsiina gaarsiinaynaa dadkii ay ka soo jeedeen dadka geeriyooday. ra-iisul wasaaraha Canada sidoo kale tacsi taa lamid ayuu diray Makani. ra-iisul wasaaraha Ingiriiska sidoo kale isna sidaas oo kale sidoo kale mas-uuliyiin kale oo Hindiyaan oo wasaaradda arrimaha dibaddu ay ka mid tahay ayaa hadlay. dhammaantood tacsi ay direen laakiin weli hawshiyaa socota oo halkii ayaa lagu mashquulsan yahay oo waxaa la kala garan la'yahay dadka diyaaradda la socday dhintay halkii ku dhintay iyo diyaaraddu halkii ku dhacday maadaama goob waxbarasho wararku ay sheegayeen inay ku dhacdo dad badan isbitaalada la geeyey. tirada ayaa weli walaac ka jira iyo ilaa hadda aan la xaqiijin. marka dabcan bbcsomali.com ayay dadku kala socon karaan wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi naga soo gaara iyo sida hadba xaalku uu yahay. hagaagaad buu mahadsan yahay xasan sheekh cumar iyo axmed beder oo kasii horeeyey oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey iyo waxaa lagu ogyahay diyaaraddaasi rakaab ee ku burburtay dalka Hindiya. haatanna Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa waxaa si rasmiya ay ugu baaqday in meesha laga saaro dalalka ku midaysan C6 ama C6 plus iyada oo ku doodaysa in habkani aanu hadda ka turjumaynin xaqiiqada siyaasadeed ee dhabta iyo tan amni ee xilligan dalka Soomaaliya ka jirta. warqad arbacadii ka soo baxday xafiiska wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in Soomaaliya aanay hadda ahayn dal ku jira xilli kala guur ah balse uu yahay dal madax bannaan oo leh hay-ado dastuuri ah oo shaqaynaya hannaan dimuqraadiyadeed oo bislaaday iyo qorshe qaran oo cad oo ku aadan nabadda iyo horumarka. dalalkani ayaa haddaba kaalin muhiim ah waxa ay ka ciyaaraan arrimaha Soomaaliya gaar ahaanna marka ay timaado siyaasadda dhaqaalaha iyo dhinaca amniga. haddaba dalalkani imika ma ka maarantaa dowladda Soomaaliya maxaase tallaabada tan lagu macnayn karaa? su-aalahaas iyo qaar kale waxa aanu u bandhignay Axmed Ciise Cawad oo hore u soo qabtay xilalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya isla markaana si dhow ula socda wada shaqaynta dowladda iyo weliba beesha caalamka. Axmed Beder ayaanu u warramay. tilaabadaasi waa tilaabo khaldan protocol ahaan iyo macno ahaan labadaba u khaldan. protocol ahaan sida ay waraaqdu u qoran tahay hadal ku qoran iyo qaabkeeda intaba waa dayacan tahay. macno ahaanna waa dayacan tahay oo waxa weeye dhibaatada Soomaaliya ka jirta iyo dhibta kaleeto dadka Soomaaliyeed oo si kale maaragtay fogaanaya iyo khilaafka siyaasadeed iyo dib u dhaca dhaqaale iyo amni intaba wax ay ka mas'uul yihiin international community-gu ama C6 ma aha. waxaa ka mas'uula madaxda dalka. waxaa C6ku waa dadkana kaalmeeya, dhaqaale ahaan naga kaalmeeya, amni ahaan naga kaalmeeya, talooyin naga kaalmeeya. markii madaxdii Soomaaliyeed ay garan weyday inay dalkooda u damqato oo ay heshiiso waa dadka isu jiidjiida. marka waraaqdu waa midaan boos meesheedii joogine.
dalalkan siisigis cidda aan aqoon shaqadoodu maxay tahay, maxay ka caawiyaan soomaaliya xilligan? horta waa safiiro lixa C6 plus baa la yihahdaa iyo wixii soo raaca, marka waa lixda ugu saameynta badan arrimaha soomaaliya. waa safaaradda maraykanka, safaaradda ingiriiska, wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, safiirka European Unionka, I think safiirka waxaan u malaynayaa Faransiiska, saddexda ku leh maxaa la yidhaahdaa Security Councilka ku leh kuraasta joogtada loo yaqaano B3 oo reer galbeedka ah, soomaaliyana kaalmeeya, iyo AU-da iyo safaarado kaloo soo raaca mararka qaarkood sida safaaradda Swedenka iyo Norway iyo dalalkan kaleeto oo Soomaaliya daneeya. marka lixda muhiimka ah oo C6 la yidhaahdo waa lixda ugu saameynta badan arrimaha Soomaaliya dhan kasta. marka waa safiiradaas weeye, waana dadkan ina garab qabta weeye oo ina kala shaqeeya xag dhaqaale iyo xag amni iyo xag maxaa la yidhaahdaa siyaasadeed. marka sharciyan dowladda soomaaliya soo xaq uma lahaa in warqadda ceenka ay u qorto oo ay tiraahdo waan idinka maaranay xilligani shaqadiina uma baahnin? dowladdu xaq waa u leedahay inay waraaq qorto. dal waxaynu nahay madax bannaan, laakiin dee waktigan hadda la joogo kama maarano dalalkaas. amni ahaan bayna uga maarmin, dhaqaale ahaan bayna uga maarmin, siyaasad ahaan bayna uga maarmin. innaga hadda dowlad maxaa la yidhahdaa madax bannaanideedii u dhan tahay oo dalkao dhan ka talisa, amniga dalka sugi karta, dalka adeegyadii dadka Soomaaliyeed adeegyaday u baahnaayeen gaarsiin karta, mid amni, mid dhaqaale, mid shaqo, mid maxaa la yidhahdaa waxbarasho, mid caafimaad, ma joogno. xataa inagu iskuma filin inaynu budgetkeena ama miisaaniyad sanadlaha ah oo dalka lagu maamulo 70% naga kaalmeeya dalalkaas. haddaan isku filaan lahayn dee nalamaba joogeen dalalkaas, ma garanaysaa. madax banaani aynu sheeganayno adduunkuna noogu tabarucay, laakiin aynaan sida muuqata ilaa hadda mutaysan ayaynu haysanaa. waxaa lagu wadaa in dalalkan ay kulan yeeshaan dhowaan. maxay noqon kartaa ayaad isleedahay tallaabada iyo falcelinta ay ka samayn karaan arrintan dowladda iyo inaan loo baahnayn? iyagu dee uma dhaqmi doonaan sida waraaqdan dayacan oo kaleeto iyo waxaan loo yaqaano knee jerk. iyagu go-aan aan macno badan lahayn oo iskalama boodayaan. waxaan filayaa inay la hadli doonaan madaxweynaha, ayna dhihi doonaan annagu dhibtu maaha, dhibtu waa adige, dadkaaga la heshii, danta dadkaaga horumari, annaguna arrimahaas ayna ka kaalmaynaa. marka dadkaaga la hadalo, dalkaaga la heshii oo dalkaaga horumarintiisa iyo maaragta nabadgelyadiisa ka shaqee. adiga waxaad ka soo shaqaysay dowladda soomaaliya dhowr xil ay ka soo qabatay. xilka wasaaradda arrimaha dibadda ayaad soo qabatay xilligii madaxweyne farmaajo oo xaaladuna ay murugsaneed, sidoo kale xilligan doorashada markii la gaaray. madaxda soomaalida waxaa inta badan ay isku eedeeyaan midba midka kale uu u dhuumanayo dalalka shisheeye. soomaalida ma isku filna miya haddii ay wada fadhiisato oo go-aan ay soo saarto? ma jirtaa cid beesha caalamka ah oo ka hor iman kartaa go-aan midaysan oo soomaalida ay leeyihiin? waa su-aal fiican, jawaabteeduna waa maya. haddii ay dadka Soomaaliyeed heshiin lahaayeen, haddii aynu lahaan lahayn xukuumad dalka Soomaaliyeed u adeegta, haddii aynu lahaan lahayn dowlad leh hay-adihii maaragtay dowladnimo dadka horumarintooda iyo dhan kasta ka shaqayn lahaa, uma baahnaaneen untu ina garab taagan tahay. sidaad sheegtay, haddii ay Soomaalidu mid ahaan lahaayeen oo wada jiri lahaayeen oo xukuumad iyagu ay leeyihiin iyo dowlad iyagu ay leeyihiin ay u shaqayn lahayd, looma baahnaadeen maaragtay kaalmo. axmed ciise cawad, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo u warramayey wariyaha BBC-da Axmed Beder ayuu kaasi ahaa. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. hagaag dowladda Maraykanka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in qaar ka mid a shaqaalaheeda ku sugan dalka Ciraaq ay ka daadgureynayso halkaasi. saraakiisha Maraykanka ayaan si dhab ah u sheegin sababta rasmiga ah ee arrintan ka dambaysa, waxaase jira arrimo la soo warinayo iyo warar sheegaya in Israa'iil ay isku diyaarinayso howlgal ka dhan ah dhinaca Iiraan, sida ay ku warramayso CBS oo BBC-da gacan saar la leh.
arrintani ayaa haddaba waxa ay imaanaysaa xilli muddaxileedkii kan ka horreeyey ee madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu isagu gebi ahaanba ka baxay heshiiskii iiraan iyo waddamada reer galbeedku ay ku wada jireen ee ku saabsanaa barnaamijka dhinaca nukliyeerka. haddaba arrimahaasi waxa aanu ka wareysanay xasan ciise khasaali oo arrimaha carabta falanqeeya. ugu horreynna waxa aan weydiiyey sababta arrintani ka dambeysa. sababta waxa weeye wada hadallo muddo u socday maraykanka iyo iiraan oo ku saabsan arrimaha nukliyeerka iiraan ayaa waxaa isku khilaafeen hal qodob oo ah bacriminta uraniumta, taasoo iiraan ay diidan tahay inay ka tanaasusho. maraykankuna uu leeyahay si nabadgelya waad u isticmaali kartaa farsamada nukliyeerka, laakiin bacrimintu waa inay dibadda iiraan wadamaha ay ka dhacdaa oo kadib marka la bacrimiyo laydiin keena uraniumti oo bacriminsan. iiraanna ay diidan tahay. marka waxay ahayd wada hadallo in ay dhex maraan labada dhinac, gaar ahaana wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabbaas ciraaqji iyo wakiilka maraykanka u qaabilsan bariga dhexe witkof maalinta axadee soo socota. waxaa soo baxday marka hanjabaad dhinaca maraykanka iyo israa'iil ka imanaysa, taas gaar ahaana israa'iil xaggeeda ka imanaysa oo iyadu ilaa muddo 10 sano ku dhowaa waday in ay duqayso xarumaha nukliyeerka ama meelaha cilmi baarista nukliyeerka iiraan lagu sameeyo. marka taasay hadda rabshadan imika soo korortay ay ka dhalatay in maraykanku shaqaalihiisii iyo dadkii aan muhiimka ahayn ee ka shaqaynayay wadamadan khaliijka iyo ciraaq iyo inay ka baxaan. xasan ciise, marka aad fiiriso tallaabadani ma loo arki karaa in maraykanku uu dagaal isku diyaarinayo? waxa ay dadka arrimaha bariga dhexe u dhuundaloolaa ay sheegeen in arrintu ay u badan tahay hanjabaad iyo in iiraan tanaasulaad laga helo. laakiin haddii iiraan tanaasulaad laga heli waayo, waxay leeyihiin toddobaadka soo socda gudaheeda waxaa laga yaabaa wax badan inay isbedelaan oo ay suuragal tahay in ay dhibaatooyin dagaal ka qarxaan. dhinaca kale maraykanku wuxuu cabsi ka qabaa haddii dagaal uu hadda ka dhaco oo iiraan la doondoonto, maadaama waddan bariga dhexe dhexdeeda marka la eego waddan weyn ay tahay, calaaqaadna ay la leedahay wadamada ruushka iyo jaynaha ay xidhiir aad u wanaagsan la leedahay, in sidaalkii adduunka iyo dhaqaalihii adduunku khalkhal uu galo, taasina ay sii abuurto markaa dhibaatadii markii horeba ghaza ka taagnayd oo dagaal dhimasho badanna abuuray, dhibaatooyin fara badanna adduunka ka sameeyeen, intaasi ay dhibaatadii jirtay sii laban laabto ayay baqdin maaragtay laga qabaa. marka wax isku xidhaya miyaa jira iiraan iyo ciraaq? ama haddii si kale aan u dhigo, haddiiba iiraan la weeraro, israa'iil ha weerarto ama maraykan ma waxay ka dhigan tahay in ciraaqna la weeraray? labada dal horta waxaa isku xidhaya iiraan waxay ka faa'iidaysatay markii Saddam Hussein la riday, maadaama Saddam Hussein ay col ahayd, iyadaa arrintaasi ka faa'iidaysatay. waxaad moodaa in dabaq dahaba ciraaq ay ku heshay oo si dhib yar maraykanka ay gacantiisa uga qaada taageerayaal fara badan, maleeshiyaad, ururo iyada u janjeeda dhinaceeda ay waddanka dhexdeeda ka samaysa. taasi marka waxay keenaysaa in saldhigyada maraykanku ku leeyahay ciraaq dhexdeeda, safaaradiisa uu ku leeyahay baqdaad, qunsuliyadda uu ku leeyahay arbil waqooyiga ciraaqa, dhulkaasoo dhan inuu cabsi ka qabo in markaas dadka iiraan taageersanay ay rabshad ku sameeyaan. wasiirka arrimaha dibadda ciraaq oo arrintaa ka hadlayay wuxuu yidhi waa arrin maraykanka u taalla ee maaha arrin reer ciraaq u taalla buu yidhi. ha yeeshee waxay arrintu u muuqataa taageerayaasha iiraan waddanka gudihiisa ay ku leedahay oo fara badan inay waxyeello u geysan karaan shaqaalaha maraykanka ee ku sugan waddanka gudihiisa. ugu dambeyntii marka xasan ciise, maxaa ka dhalan kara tallaabadan, gaar ahaan marka la fiirinayo bariga dhexe? waxaa ka dhalan kara bariga dhexe isagoo kolka horeba si meel cakiran ahaa oo rabshado dagaaladan ghaza ka taagani ay dhibaato badan ka abuureen, in haddana wadamada gaar ahaan khaliijka ku yaala oo maraykanka dhinaciisa aad saaxiiba ulaha una janjeera, in culays fara badan uu soo fuuli doono, gaar ahaan wadamada qatar, weyd iyo imaaraadka oo kale iyo baxrayn oo saldhigyo uu maraykanka ku leeyahay. iiraanna waxay ku hanjabtay inay dhammaan wadamadaasi wada duqeen meelaha saldhigyada maraykanka ku leeyahay oo dhani uu hadaf u noqon doono haddii lasoo doonto dhulkeeda. dhulka iiraanna waa dhul ballaadhan, sawaariikh aad u fara badan iyo diyaaradahan daroonka oo fara badanna way haysataa. marka israa'iilla wax badan bay gaadhsiin kartaa, saldhigyadan maraykanku meelaha ku leeyahayna dhibaatay gaadhsiin kartaa. marka waxay noqonaysaa khalkhal fara badan oo aad u culus inuu bariga dhexe soo wajo. xasan ciise khasaali oo ah khabiir arrimaha carabta falanqeeya oo khadka taleefonka igu warramayey. haatanna shirkadda la yidhaahdo uber ayaa magaalada london waxa ay ka bilaabi doontaa tijaabada tagsiga aan darawalka lahayn ee iskii iswada. abkan ayaa haddaba waxa uu la shaqayn doonaa shirkadda ama garaadka macmalka ee ingiriiska ee wifi loo yaqaano, taasi oo horeba u tijaabisay teknolojiyadani
gaar ahaanna ka hirgelisay waddooyinka magaalada london laakiin ilaa iyo hadda qof ayaa ku fadhiya kursiga darawalka si uu u ilaaliyo badqabka qofka rakaabka ah tifaftiraha tiknolojiyadda ee b b c da siyo kaliman ayaa warbixintan ka diyaariyey dhowr toddobaad ka hor ayaannu gaari ku soo marnay london oo dhan innagoo isticmaalayna tiknolojiyadda darawalnimada laakiin keligay maanan ahayn waxaannu ku soconnaa gaari hadda iskaxaynaya oo maraya waddooyinka bartamaha london waxa uu aqoonsanayaa seedka uu u baahan yahay inuu galo waxa uu ka fogaanayaa khataraha gaar ahaanna baaskiilla badan baabuur baarkin ku jirta dhisme ka socda waddooyinka iyo dhammaanba gaadiidka caadiga ee magaalada oo na ciriirinaya waxaa jiro darawal badbaado oo fadhiya kursiga darawalka magaciisu waa george laakiin waxba ma samaynayo waxaannu ku jirnaa hab madax bannaan taasina waxa ay sidoo kale ka dhigan tahay in dhammaan go'aannada lagu gaarayo gaariga wakhtiga dhabta ah waxaa kaloo jira badhan casaan ah oo weyn oo la taabto xagga hore haddii ay wax qaldamaan oo uu mar kastaahi la wareegi karo laga bilaabo sannadka soo socda waxa aad filan kartaa inaad aragto gawaari badan oo sidan oo kale ah oo waddooyinka magaalada ku socdo iyadoo aan cidina aanay la socon dowladda u k ayaa sheegtay inay soo kordhinayso qorshayaal lagu oggolaanayo tijaabinta tagsiga aan darawalka wadin iyo adeegsiga baska u eg sannadka soo socda ee uber waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay samayso qorshahaasi waxaan u bilaabi karnaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka waaxda sharciyeynta deegaanka noo oggolaato inaan samayno waxaan helnay 18 saaxiib oo caalami ah oo hadda nagala shaqaynaya madax bannaanida waxaa jira tiro ka mid ah shirkadahaasi oo jeclaan lahaa in ay ka bilaabaan tagsiga uberka u k tagaasida robodka ayaa horey waxa ay ugu sugnaayeen waddooyinka qaar ka mida magaalooyinka maraykanka dalka imaaraadka shiinaha iyo singabuur daraasadaha qaar ayaa soo jeedinaya in gawaaridaasi bilaadarawalka ah ay ka shil yar yihiin kuwa bini'aadamku wado laakiin sidoo kale waxaa jirta tiro cillado ah oo sarraysa oo ah halka ay ku shaqaynayaan mid ka mida tagaasida robodka ee san francisco waxaa kaloo jira walaac ku saabsan saamaynta bulsho ee tiknolojiyadda gaar ahaana shaqooyinka waxaa runtii na qusaysa in ka badan 1 milyan oo qof oo ku shaqaysa darawalnimada dalka u k waa inaan si dheer uga fikirnaa dhibaatooyinka bulshada ee iman doona haddii lagu beddelo tiknolojiyadda tooska ah tani waxa ay keeni kartaa arrimo waaweyn oo dhanka bulshada ah arrimahaasi waaweyn oo ku saabsan dhanka shaqooyinka waxaan u baahannahay inaan aad uga taxadarno ka hor inta aan oggolaan magaalada austin ee gobolka texas ee dalka maraykanka uubarada darwalla'aanta ahi waxay shaqayn karaan 20 saacadood maalintiiba 7 maalmood ee toddobaadkii qiimaha shirkadduna waa mid isku mid a teslo waxa uu ku dhow yahay inuu halkaasi ka bilaabo adeeg uu kula tartamayo uber waxa ay sheegtay inay rajaynayso in ay si toosa u siiso macaamiisha u k marka ay tijaabada halkani ka bilaabato sannadka soo socda su-aashu waxay tahay in ingiriisku diyaar u yahay inuu galo howshaas sahan la sameeyey sannadkii hore ayaa soo jeedinaya in 37% oo dadka annaga oo kale ah ay dareemayaan ammaan darro gawaarida darawalla'aanta ah mahadsanid saalimiin warbixintii wariyaha b b c da waa tifaftiraha tiknolojiyadda siyo kelman ayay taasi ahayd afrikada bari saacaddu waa 5:00 cabdiraxmaan wararka maxaa ugu doorroon xilligan booliiska indiya waxay sheegayaan in aan la filayn ay jiraan waxdada oo ka badbaaday diyaaraddii ee indiya ee ku dhacday xaafad ka tirsan magaalada axmedabad wax yaruun ka hor markii ay kacday 240 qof oo saarnaa diyaaraddaas oo u socotay london waxaa la soo warinayaa in dhammaantood ay dhinteen halka sidoo kalena ay waxyeelaysay dad ku sugnaa dhulka iyo goobtii ay ku dhacday mas-uuliyiinta caafimaadka khasana waxay sheegeen in ugu yaraan 26 falastiiniya ay dhinteen kadib dhowr dhacdo ay ku jireen dad isku dayey inay helaan gargaar raashina dhimashadan ayaa noqotay kuwii ugu dambeeyey taniya markii uu qiso gaadhay mashruuc bini'aadannimo ay taageerayaan maraykanka iyo israa'iil hay-adda IAEA ee qaramada midoobay u qaabilsan kormeerka nukliyeerkuna waxay sheegtay in iiraan ay jabisay waajibkeeda la xidhiidha xakamaynta faafinta hubka nukliyeerka golaha IAEA ayaa meel mariyey qaraarka dalbanaya tehraan ee sharaxaad ka bixisa walxo nukliyeer oo laga helay goobahan hore loo shaacin
booliiska australiana waxay sheegayaan in ninka loo haystay inuu dilay 10 qof oo ku sugnaa iskuul ku yaal magaalada Gras uu ahaa qof go'doonsanaa oo xaalad kalinimo ku noolaan jiray waxaana ku safeeyeen nin doorbidayay in dunida dhabta uu ka howleelo booliiska caasimadda Kenya ee Nairobi waxay sunta dadka ka ilmaysa u adeegsadeen dad mudaharaadii kuwaas oo ka calaysnaa geerida qoraa ku jiray gacanta booliiska baalaha dawladdu wuxuu sheegay inay jiraan caddeyn muujinayaan Albert Ojwang la garaacay dhaawacii ka soo gaadhayna uu dhintay wasiirka difaaca Jarmalkuna wuxuu ku sugan yahay magaalada Kiev si uu ugala hadlo taageero hub dheeraad oo ay siiyaan Ukraine Jarmalka ayaa ah taageeraha labaad ee ugu weyn Ukraine marka laga yimaado Mareykanka shirkadda Poundland ee dalka Britain-na oo caan ku ah iibinta alaabo qiimo ahaan hal pound ah waxaa lagu iibiyey isla qiimahaas shirkaddan ayaa wajahay si hoos u dhac ku yimid iibkeeda Poundland waxay sidoo kale gadaa alaabo qaali ah qaramada midoobena waxay ka digayaan in qaxooti badan ay ku sugan yihiin xaalad gaajo xiriyaha qaxootiga kadib markii ay dhaceen taliso ballaadhan oo lagu sameeyey deeqihii dhaqaale ay bixin jireen Mareykanka iyo deeq bixiyaasha kale madaxa hay'adda Philip Grandina wuxuu sheegay in dadka barakacayeen la ballaameen 10 sano la soo dhaafay halka wixii ku bixi jiray aan waxba ku kordhin aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan cali dhimbiil oo mar kale inoo dulmarayay qodobada wararka caalamka ugu doorka roon xilligan kheerta hawada nagala xidhiidhay warar kale ayaa inoo soo socda iyo warbiximo waxaana ka mid ah allah saaxiibka cabiirka qabdhimadan fariin farxad loo ii soo diree sugba aan walaashay caali iyo 4 qof oo kale aan u diray fariintan farxadda lehe walaasal maxaa waxaana ii soo dirtay waa madayskii maanta oo kale aad dhegaysan jirteen ee dumar iyo deegaan goordhow ayaa aad dhegaysan doontaan balse markan mas-uuliyiin ka kala socda Mareykanka iyo Iiraan ayaa waxaa lagu soo warramayaa wadahadallo foolka fool ah in ay ku yeesheen magaalada la yidhaahdo Masqat ee caasimadda u ah dalka Cumaan iyada oo ay isku dayayaan in ay gaadhaan heshiis cusub oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iiraan hore ayaa waxaa u jiray heshiis nukliyeer ah oo ay kala saxiixdeen Iiraan iyo quwadaha waaweyn ee caalamka balse sanadkii 2018 ayaa Donald Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanku gebi ahaanba heshiiskaasi uu ka baxayo isaga oo Iiraanna sidoo kale saaray cunaqabatayno dhaqaale oo dheeri ah cabdishukri haybe ayaa haddaba waxyaabihii lagaga wada hadlay isha si gaar ah ugu hayay heshiiskaasi Mareykanka iyo Iiraan u dhexeeya waxaana weydiiyey bal wararka ugu dambeeyey ee lagala socdo heshiiskaasi nimcaanow marka koowaad Iiraan waxay ku adkaysanaysaa in barnaamijkeeda nukliyeerka ujeedkiisu uu yahay mid nabadgelyo oo rayid ah oo ayna damacsanayn saamaynta hubka nukliyeerka balse dalal badan iyo hay'adda caalamiga ee kormeerta arrimaha nukliyeerka ee International Atomic Energy Agency ma aaminsana arrintaas shaki ayaana dhashay ujeedooyinka Iiraan sanadkii 2002 kadib markii la ogaaday in dalkaasi uu lahaa xarumo nukliyeer oo qarsoodi ah tani waxay ka dhigan tahay jabinta heshiiska loo yaqaano heshiiska xakamaynta faafinta hubka nukliyeerka ama loo soo gaabiyo NPT kaas oo ay saxiixday Iiraan iyo ku dhowaad dhammaan dalalka caalamka oo dhanba heshiiska NPT wuxuu ogolaanayaa in dalalku ay u isticmaalaan teknolojiyadda nukliyeerka ujeedooyin nimcaanow aan military ahayn sida caafimaadka beeraha iyo tamarta balse ma ogola saamaynta hub nukliyeer ah cabdishukri marka laga hadlayo inta uu gaadhsiisan yahay horumarka ay Iiraan ka samaynayso barnaamijkeeda nukliyeerka maxaa lagu qiyaasaa tan iyo markii Mareykanku uu sanadkii 2018 ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee jiray oo loo yaqaanay qorshaha isfahan ficileedka wadajirka ah Iiraan waxay jabisay ballanqaadyadii ugu muhiimsanaa ee heshiiska iyadoo taas uga jawaabaysa cunaqabataynadii dib loogu soo rogay Iiraan waxay rakibtay kumanaan mashiino casri ah kuwaasoo lagu nadiifiyo macdanta uraniumka ee nukliyeerka laga sameeyo si ay u kabciso uraniumta taas oo si cad uga hor imanaysa shuruudaha qorshaha isfahanka ficileed ee wadajirka ahaa ee Iiraan iyo wadamadii kale ee reer galbeedka ka dhexeeyey uraniumka oo loo kobciyo nimcaanow 90% ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo hubka nukliyeerka ah qorshaha isfahan ficileedka wadajirka ah wuxuu Iiraan u ogolaanayaa oo kaliya inay kaydsato ugu badnaan 300 oo kilogram oo uranium ah oo lagu kobciyo 3.67 taasoo ku filan tabarta nukliyeerka ee rayidka ah iyo cilmi baarista balse aan lagu samayn karin bam nukliyeer ah si kastaba ha ahaatee ilaa bishii Maarso 2025 sanadkan hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada waxay shaacisay in Iiraan ay haysato qiyaastii
275 kilogaram oo uranium ah oo la gaarsiiyey heerka 60%. haddii iiraan sii kobciso uraniumkan si aragti ahaan ah waxay ku filnaan kartaa in laga sameeyo 6 ilaa 7 madax oo hubka nukleerka. mas-uuliyiinta maraykanka ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in iiraan ay uraniumkaas u rogi karto walxo ku filan hal bam oo nukleer ah hal toddobaad gudihiis. sidoo kale waxay carabaabeen in iiraan ay qaadan karto 1 ilaa 18 bilood si ay u horumariso hub nukleer ah oo dhammaystiran. qaar ka mid a khubarada ayaa sheegaya in bam fudud la samayn karo wax ka yar 6 bilood. nimcaanow waa tahay cabdishukriyow waxaynu xasuusanaa in trump muddaxileedkiisii kan ka horreeyey uu ka baxay heshiiskii iiraan iyo waddamada reer galbeedku ay ku wada jireen. sababaha maxay ahaayeen haddaad dib noo celiso? nimcaanow tan iyo 2010 qaramada midoobay maraykanka iyo midowda yurub waxay iiraan saareen cunaqabatayn dhaqaale oo aad u adag sababo la xidhiidha tuhun ah barnaamijkeeda nukleerka loo adeegsanayo saamaynta hub nukleera. cunaqabatayntaas waxay iiraan ka jareen suuqyada caalamiga ee saliidda waxayna xanibtay hanti dhan 100 bilyan oo iiraan ay ku lahayd dibadda. natiijada ka dhalatay dhaqaalihii dalku wuu burburay, lacagtiisiina waxay u dhacday si hoose heer taariikhi ah halka sicir bararkuna uu aad maaragtay u kacay. sanadkii 2015 iiraan iyo 6 dal maraykanka, shiinaha, faransiiska, ruushka, jarmalka iyo boqortooyada ingiriiska waxay saxiixeen heshiiska qorshaha isfahan ficileedka ee ku saabsanaa hubka nukleerka ah. taa beddelkeeda dalalkaas waxay ogolaadeen in ay cunaqabataynta ka qaadaan iiraan. heshiiskaas wuxuu dhigayey in uu shaqeeyo muddo 15 sana kadibna gebi ahaanba laga qaado cunaqabataynta. trump wuxuu heshiiskaas ku tilmaamay heshiis aad u xun sababtoo ah ma ahayn mid joogto ah mana uusan taaban ayuu yidhi barnaamijka gantaalada riddada dheer ee iiraan iyo arrimo kale oo muhiima. trump wuxuu dib ugu soo rogay cunaqabatayntii maraykanka isagoo qaadanaya siyaasad lagu magacaabay cadaadis daran si uu iiraan ugu qasbo inay gasho heshiis cusub oo ballaaran. go'aanka trump waxaa sidoo kale uu saameeyey saaxiibada maraykanka ee gobolka gaar ahaan israa'iil. nimcaanow ugu dambayntii cabdishukriyow waxaa jira cabsi daran oo isa soo taraysa oo laga cabsi qabo in maraykanka iyo israa'iil ay weerari karaan iiraan. arrintaasi ma jirtaa? nimcaanow maraykanka iyo israa'iil labaduba waxay leeyihiin awood ciidan oo ay ku burburiyaan kaabayaasha nukleerka iiraan balse howlgalkaas wuxuu noqon lahaa mid aad u adag, khatar badanna leh, islamarkaasna leh cawaaqib aad u fog. goobaha ugu muhiimsan ee nukleerka iiraan waa kuwa dhulka hoostiisa ku yaala waxaana lagu gaari karaa oo keliya bambooyinka ugu awooda badan ee dhulka dumiya. maraykanku wuu haystaa noocaas bambooyinka ah balse lama oga in israa'iil haysato. iiraan waxay ku qasbanaan doontaa inay isdifaacdo waxayna weerari lahayd bartilmaamadii maraykanku ku leeyahay gobolka. sidoo kale waxay gantaallo ku dhufan lahayd israa'iil. howlgalkan noociisa maraykanku wuxuu u baahnaan doonaa inuu adeegsado saldhigyada militari ee uu ku leeyahay gacanka beershiya iyo maraakiibta qaada diyaaradaha. si kastaba waddamo ay ka mid tahay qatar oo martigeliya saldhigga ugu weyn ee ciidamada cirka maraykanka ayaa laga yaabaa inaysan ogolaanin in laga weeraro dhulkooda iiraan iyagoo ka baqaya in iiraan ay uga aargudato. nimcaan aad ayuu mahadsan yahay cabdishukri haybe oo inala socodsiinayey wararkaasi la xidhiidha heshiisyo la sheegay ama wadahadallo la sheegay in ay dhex mareen maraykanka iyo iiraan. haatanna magaalada los angeles ee gobolka california indhowaale waxaa halkaasi ka taagnaa qalalaase xoogan oo muhaajiriinta iyo weliba dad kale oo magaaladaasi degan ay dhigayaan iyadoo ciidamo tiro badanna halkaasi dowladdu ay ku daabushay. haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafkani? su-aashaas iyo qaar kale waxa aan weydiiyey qareenka la yidhaahdo amiin haaruun oo aan khadka taleefonka ku waraystay. xaaladan los angeles ka taagan walaal waxay ka dhalatay kadib markii hay-adda maaragtay immigrationka ee ice loo yaqaano ama socdaalka ee ice loo yaqaano ama immigration enforcement hay-adda loo yaqaano oo ah booliis arrimaha socdaalka iyo dadka soo galootiga ka shaqeeya oo federaal ah ay isku dayeen in ay bartilmaameedsadaan ganacsiyo iyo maaragtay qaybo ka mid a magaalada los angeles iyagoo markaas isku dayay inay qabtaan ama daadgurayaan dad soo galooti ah oo aan sharci lahayn ama maaragtay koley baaritaan ay ku samaynayeen in aysan dadkaas sharci lahayn in kale. taas ayaa waxaa ka dhalatay in dadkii deganaa magaalada ay ka soo horjeedsadaan iska horimaad iyo maaragtay mudaaharaad ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa ciidankaasi wadayna halkaasi ka bilowday. taasina ay keentay in madaxweynaha dalkan maraykanka uu dalbado ciidamada ammaanka maaragtay ciidamada federaalka ah
national guardka loo yaqaano in uu soo diro waa tahay kadibna ciidamo marines uu kusoo lifaaqo marka halkaas ayay hawshu ka bilaabatay halkaas ay hadda maraysaa maxaa u gaar ah gobolkan california ama magaalada tan hadda los angeles ee rabshaduhu ka socdaan wax u gaaro oo madaxweynuhu u beegsanaya miyaa jirtaa dabcan way jirtaa oo magaaladani gobolka california oo kale kow wuxuu dhacaa xuduud dheer wuxuu la leeyahay dalka mexico oo ay soo galooti fara badan ka soo galayeen muddo dheer oo dad fara badan oo soo galooti ah caadi ahaan ku nool magaaladaas iyo gobolkaas california gaar ahaan los angeles waxaan ognahay in dadka reer los angeles ama reer california aysan macnaha madaxweynaha u codaynin sidiisaba oo iyagu maaragtay ay dhinaca xisbiga dimuqraadiga xigsadaan guddoomiyaha gobolka meeyarka ama duqa magaalada iyo dhammaan ay yihiin xubno dimuqraadiya taasaana marka laga yaaba inay keentay beegsiga amiin wararka aan helayno waxay sheegayaan in ciidamo dheeriya halkaasi lagu daabulay rabshaduhuna ay sii xoogeysteen iyada oo aanu madaxweynuhu guddoomiyihii gobolka ama mas-uuliyiintii kale ee magaaladaasi aanu kala tashan in ciidamo la geeyo sharci ahaan maxay ka dhigan tahay arrimahani waa arrimo laysku hayo arrimaha waxay salka ku haysaa runtii arrimaha dastuuri ah oo awoodaha dowladda federaalka ah iyo awoodaha gobolada iyo weli salka ku haysaa waa arrin federalismka maraykanka ka jira sal uu u yahay maxkamadaha arrintii hadda lagula jiraa waa nin waliba wuxuu cuskanayaa ama uu maaragtay sheeganayaa sharci u ogolaanaya madaxweynuhu wuxuu leeyahay wuxuu sheegtay sharci federaal ah oo qoraya haddii awoodda dowladda laga hor yimaado oo ay dadku ka hor yimaadaan madaxweynuhu inuu xaq u leh inuu ciidamo u diro iyaguna goborneerka iyo duqa magaaladuna waxay leeyihiin waa qalad in ciidamadii federaalka loo isticmaalo dad muwaadiniin ah oo ku banaanbaxaya magaaladoodii iyo gobolkoodii marka si kala duwan ayaa loo fasiranayaa laakiin labaduba sharci ay isticmaalayaan laakiin waxaa bilaabatay maxkamadayn iyo in maaragtay maxkamadaha laisgeeyo oo halkaas lagu garamo dabcan waxaa jirta in dadkaasi ay yihiin dad intooda badan nolol soo raadsaday qaar badan oo ka midiina ay halkaasi ka shaqeeyaan haddiiba markaa la damco in la tarxiilo ma jiraan waxyaabo cawaaqiba oo ka dhalan kara walaalo horta dadka banaanbaxayaay ma aha keliya soo galooti dadka maraykanka ee gobolkaas degan waay marka dad fara badan oo maraykan ayaa waxay u arkaan qaabka xukuumaddani ula dhaqmayso soo galootiga inay tahay si ibni aadanimada ka baxsan si aan habboonayn sharcigana ay xukuumaddu qalloocinayso dabcan dadka saamayn bay ku yeelanaysaa marka cabsigelin badan ayaa soo wajahaysa dad badan oo dee laga yaaba inay wax dembiya lahayn laakiin nolol maalmoodku iska raadsanayaan baa laga yaabaa in arrintani ay ku galaan oo laqa qabto laakiin dee waddankuna sharci buu leeyahayoo qofkii waddankan aan sharci ku imaanin aan maaragtay waxba dalbanin sida magangeliyo ama wax kale aan u xaaraysnayn oo aan sharci suga ahayn xukuumadihii kala dambeeyey weligoodba way dhaqan gelin jireen dad fara badan way masaafurin jireen laakiin tani waxay dheer la tahay in ay si maaragtay suuqa dadka ka qaqabato oo aysan nidaamkii cadaaladda iyo maxkamadda usoo marayn ma laga yaabaa marka rabshaduhu in intan ay ka sii bataan waa laga yaabaa runtii inay ka sii bataan keliya los angelesna ma ahe magaalooyin kale oo fara badan ku fidaan hadda sida maxay ahayday atlanta oo kale la sheegayaa tan aan joognay minneapolis ayaa lafteeda laga shaki qabaa maalin dhaweyto ciidamo isku dhaf oo federaal ah oo 2 makaayadood oo hal qof uu lahaa sidan oo kale ka qabtay maaragtay isku gadaamay oo arrimo kale oo faldembiyeed la macnaha ku shaqale u socday dadkii aad bay ugu soo qamaameen waxayna u arkeen inay yihiin hay-addii masaafurinta oo dadkii qaqabanaysa marka meeshaas waxaa ka yimid iska horimaad marka magaalooyin fara badan oo magaalooyinka waaweyn ah sida new york iyo atlanta iyo chicago iyo minneapolis iyo magaalooyin waaweyn oo fara badan arrintaasi aad baa looga walwalsan yahay inay ka dhacdo waana maaragtay wacyigelin waxaa jirta feejignaan badan qareen amiin haaruun oo khadka taleefonka ee minneabolis iigu warramayey ayuu kaasi ahaa ugu yaraan 49 qof ayaa wararku ay sheegayaan in ay ku dhinteen oo dabcan caruurna ay ku jirto daadad ku dhuftay gobolka la yidhaahdo eastern cape ee dalka koonfur africa iyada oo roobab mahiigaana oo baraf wata ay ka da-ayaan qaybo ka mid ah dalkaasi meedadka la soo saaray ayaa haddaba waxaa ka mid ah 4 caruur ah darawal iyo krishboy saara bas ay daadadkaasi la tegeen xilli uu marayay buundo ku taalla magaalada la yidhaahdo mtata subaxnimadii talaadada haddaba waxaa arrimahaasi aanu ka waraysanay cabdiwaaxid xaaji faarax oo degan magaalada johannesburg ee dalka south africa waxaanu u waramay aadan maxamed cabdi saalamiin
South Africa hadda waxaa lagu jiraa xilliga oo winterka ah ama qaboobaha lagu jiraa waxaana isleedahay mararka qaarkood sanadba sanadka ka dambeeya cimilada isbedelka cimilada oo aada isu bedelaysa sababtoo South Africadii hore waxyaabahan hadda qabowgan tirada badan leh iyo barafka lama arki jirin laakiin hadda sanadahan dambe sanadba sanadka ka dambeeya macnaha crisiska dhanka cimilada ay sii badanayeen hadda South Africa gobolada hadda aadka u saameeyey qabowgahan iyo robabkan oo mahigaanka iyo daadadka iyo waxaa ka mid ah gobolada dhaca xeebaha badweynta India oo ay ka mid tahay gobolkan hadda lagu dhamaaday caruurta ardayda ah ee baska saarneed ee la waayey ee dadka qaaday laleeyahay Eastern Cape gobolka Western Cape qaybo ka mid ah oo caasimad u ah Cape Town qaybo ka mid ah oo xigta dhanka xeebaha badweynta India iyo gobolka la dhaho KwaZulu Natal oo asna ah gobol dhaca dhanka iyo badweynta India waa meelaha inta ugu badan hadda ee ka dhacan haba ugu darnaatay gobolka Eastern Cape qasaaraha guud ilaa iyo hadda inta laga warhayo oo daadadkaas iyo barafkaasi iswataa ay geysteen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah hadda magaalada la dhaho magaalada dad ugu daran ee daadadka aadka u saameeyeen oo noloshii iyo deegaankiiba ay saameyso waa magaalo yar oo ku taala Eastern Cape la dhaho Umtata waa halka uu Nelson Mandela uu kasoo jeedo asal ahaan waa tuulo yar oo u jirta 540 kilomitir magaalada Port Elizabeth la dhaho ee gobolkaas caasimada u ah waxaa ku guriyooday la leeyahay oo nolol iyo geeri lagu leeyahay caruur saarnaayeen arday iskuul ka soo baxay ah oo ilaa 12 gaarayso inta badan meelahaas waa meelo yar oo tuulooyin camal ah oo guryo oo macnaha saas u sii waaweyn aan ka dhisnayn oo daadad ku saameeyeen guryihii iyo daadadkii waxaa koreeya dadkii noloshii dad aad u tabar yar oo aad u dhaqaale yarna ay degan yihiin deegaankaas oo aad saameyn ugu yeelatay oo ugu horeyso koronto la-aan biyo nadiif lacag aanan lahayn meesha waxyaabahaas oo dhan oo loo aaneynayo gobolkaas inta badan uu ka yara dambeeya gobolada South Africa marka la dhaho dhanka horumarka waxaad iga warantaa dhinaca waxa ay saameyn ku yeesheen daadadkan iyo barafkani xagga korontada oo waxaa leeyahay dad gaaraya ilaa iyo 500,000 oo guri ayaa koronto la-aana maantay marka bal ka waran xaaladooda siday tahay wallahi hadda anigaan kula hadlayo baraf nooma dhicin Johannesburg laakiin 11 beri wax biyo amaynan helin xaafadda aniga hadda deganahay aan joogo kala soo hadlayo Santana lahaa waa meeshii ganacsiga magaaladii ganacsiga Johannesburg 11 beri wax biyo ah dhibic nooma soo dhicin korontada way noo joogtaa biyo la'aantaas aad sheeganayso ama guud ahaan aad deegaanka ka sheegayso waxa sabab u ah duufaanada iyo roobabka dhacaya gobolada South Africa 9 gobol oo ka kooban wadan aad u weyn hadda gobolka aan joogo kale qooteen inta badan biyo la'aanta iyo korontada waxa loo aaneeyaa infrastructure-ka oo ah wax oo aad u duqooy daadadkan hadda dhacay oo keenay dhimashada iyo dhibaatooyinka biyo la'aanta ah Soomaali badan baa degan Koonfur Africa ama South Africa wax saameyn ma ku yeelatay deegaanada hadda oo daadadka ka dhaceen oo gobolka Eastern Cape oo aan aad u aqaano oo in muddaana ku safray in muddaana ka soo shaqeeyay saameyn aad weyn ay ku yeelanaysaa sababtoo ah Soomaalida inta badan waxay ganacsiga ku leeyihiin ma aha meelaha magaalooyinka ee waa meelaha tuulooyinka sida Umtata oo kale hadda oo meelaha aadka ee daadadka iyo duufaanada iyo barafka uu saameeyay ay ka mid tahay dukaamanka meesha lagu haysto iska dukaamanka yarka iriska ahaa ee tabakayooyinkii Soomaaliya la dhigi jiro kale oo cooshadaha iyo alwaaxda iyo ka samaysnaa soo marka saameyn aad u fara badan ay ku yeelanaysaa dhanka ganacsiga oo ganacsigoodii uu istaagayaa inkastoo haddana marka la eego dadyoga Soomaalida ee ganacsatada ah ee meelahaas oo kale ganacsiga ka raadiya ay u badan yihiin dad dhalinyaro oo xoogaa ay ka yara kici karaan markay crisis dhacaan oo kale dawladdu maxaa tallaabo ilaa hadda ay qaaday oo arrintaasi kaga falcelinaysaa والله دولة أدي دلاليسا مدحوينها ودنبي أو كهذا أرنت كده على إيسترين كيب ويقبلنا كقار كمدة كوازولو نتال أو وسوجي دي إن قرب الجارسيو سود أفريقيا حجاوة دولة أفريقيا أو أدو هرمرسن أو دانك إنفستراكشر كأيو دقالة هان مركل فيري كهرمرسن أفريقيا أنت أو أيضا له أو ملتري له أو بوليس له أو جرجار كدق له أنت بو يقرمنا يعني سنو كله هذا فربضن أو محلي أو خيب فربضن إكتشف قادنو يعني إن ذكاس قرمد أوفديان
ilaa ay hadda xarunta saadaasha hawada ee South Africa digniino fara badan ay dhiibta ayaa jira oo ay kamid tahay in la safri karin liskaga kala gooshi karin gobolada tusaale ahaan gobolkan KZN la dhaho iyo Eastern Cape iyo Western Cape intuba way saaran yihiin marka la eego qaab ay ugu teedsan yihiin badweynta Hindiya so in dowladda marka waxyaabaha aad ku hadlayso waxaa kamid ah in safarka la yareeyo aad loo wacyigelinayo ummadda waa hagaagkaasina waxau ahaa cabdiwahaab xaaji faarax oo degan magaalada johannesburg oo khadka taleefonka ugu waramayay aadan maxamed cabdi saalamiin haatana dhegeystayaal waa riwaayaddii galabta oo kale aan oga barateen ee dumar iyo deegaan maluhu maaha xaqiiq waa halkudhigga maadayskan kooban caaliya oo ku jirta riwaayadda go'aankeeda waxa uu yahay in waalidkeeda iyo bulshadaba ay kaga digto wararka la been abuuri karo kuwa beenta ah iyo khataraha ka imaan kara haddaba toddobaadkan maxay walaalkeed sahal kaga digaysaa allah saaxiibka cabiirka labdhimadan fariin farxad loo ii soo diree sugba aan walaashay caali iyo 4 qof oo kale aan u diray fariintan farxadda lehe sahal maxaa waxaana ii soo dirtay adu war farxad leh xataa haddaa kuu soo dir ma qeynaya caaliyo yaa waaba kaa yaabanaybo 100 maraa ku dhahay ii soo dirin waxaan camal ama furtale linkigan haa waa furay waa fariin sheegaysa qofkii sheer garay inuu heli doono tigid bilaash uu ku dhoofo ma ogtahay furitaanka linkiyada xayeysiiska beenta ku jiro inay dhibaato kaaga imaan karto horta aday kaala waxaa kaala yaab marul maxaa cabsi loogu sheekaysaa horta abaayo maxaa waa khatarta ku jirta fariimahan mar waa in fayras kaa gaaro qalabkaaga sida telefoonka aad ka furtay ama kombiyuutarka marna waa inaad faafinayso xogo been ah khatarta teleefoonkay waaba gartee see fariin saaxiibka ii soo diray been u noqon kartaa fariinta saaxiibkaa kuu soo diray waxay noqon kartaa mid been abuura oo marin habaabin ah waaba bilowdab kaaskii hooye uu sheegay isleymo warkaas war dhegaysaniyo waxaa jira noocyo kala duwan oo been abuura iyo qaabab loo faafiyo maxayin horta qaybahaas waxaa jira fariimo sheegaya inaad helaysid duulimaadyo iyo hadiyada bilaasha sidoo kalena kuwa sheegaya inaad ku guulaysanaysid abaalmarin lacageed haddii aad faafisid fariintaas taas midda hadda kuu soo diraya le waayabe sidee lagu faafiyaa marka horta siyaabo kala duwan ay ku faaftaa waxaa ka mid ah facebookga tiktokga whatsappka iyo meelaha kale ee fariimaha la iskugu diro sidaa darteed waxaa fiican inaad iska xaqiijiso xog walba aa heshid intaadan qof kale u gudbinin waxaas maa la ogaan karaa marka runtooda iyo beentooda waxaa la samayn karin ma jiraane tallaabooyinkan qaad si aad u hubiso saxnaanshaha xogta maxay yihiin tallaabooyinkaas kow iska fiiri xogta la sheegay iyo sida loo dhigay tan labaad waxaa fiirin kartaa qofka ama akoonka ay xogtan ka timid in lagu kalsoonaan karo iyo in kale tan ugu dambayso isku day inaad hesho caddaymo la xiriiro saxnaanshaha xogta inta aadan cid kale u gudbinin oo hadda tigidkayga bilaashka ahay isdhehey walaashay adiga ku baxa ma waxaa leedahay been waay macnaha haa been waay waxaas ee mar dambe ha dirin fariin aadan hubin waa tahay aad ay u mahadsan yihiin jilayaasha madayskaasi gaaban ee dumar iyo deegaan oo maanta oo kale aa halkan ka dhagaysataan haatanna waxaa la soo gaadhay qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkan xubintii cayaaraha waxaan ka waraystay maxamed axmed daysane suuqa kala iibsiga oo la xiray 10 bisha hadda waxaa ka dhiman 4 maalmood ayaa ka dhiman dib in loo furo liverpoolna suuqa ayay ku jirtaa oo wararka waaweyn wuxuu yahay inay soo wadaan cayaaryahankii Flores Fees ee Jarmalka ay ka keenayeen 100 milyan ku soo wadaan hase yeeshee Liverpool waxay go'aansatay 4 dhaliyo oo waaweyn oo Yurub ka ciyaara mid kamid ah inay ku soo xoojiyaan taasoo ay rabaan cayaaryahanka nambarka 10aad ka dheelo ciyaaryahano oo quudiyo oo gool dhali kara inay keenaan oo Maxamed Saalax kaliya ayaa xagga goolinta ay ku tiirsanayeen waa la soconaa cayaaryahankoodii Darwin Nunes oo 85 milyan 3 sano ka hor ay ka soo bixiyeen in sanadkan 7 gool kaliya oo dhaliyay 7 kubadna oo dhigay 47 cayaar oo ciyaaray ayna rabaan in ay gadaan kaasoo 85 milyan ay ka soo bixiyeen laakiin waxaa laga yaabaa inay 60 milyan ay ku gadaan cid gadatana ilaa hadda ay raadinayaan saas daraaddeed waxaa loo maleeyaa in ay keenaan cayaaryahanka Ukateki kaasoo 48 ciyaaray 22 goolna dhaliyay ay indhaha ku hayaan ay rabaan Chelsea inay kooxdaas laftigiisa inuu aado cayaaryahankaas loo maleynayo ay u badan tahay inay kala soo wareegaan iyo Alexander Isak oo Newcastle u dheela aan qaba inuu yahay nambarka 9aad ee Premier League ugu fiican laakiin lacagtiisa aad iyo aad u badan marka waxaa kaloo loo maleeyaa Benjamin Sesko laftigiisa oo Arsenal lala tirinayo inay soo leexsadaan way dhici kartaa waa tahay daysanow marka laga yimaado Liverpool dabcan kooxo badan baa waxay dagaal ugu jiraan in ciyaaryahano ay la soo wareegaan Arsenal iyada maxaa ku dhacay ilaa hadda
hal ciyaaryahan lama soo saxeexanin runtii Arsenal waxaa u malaysaa inay aad iyo aad u degan tahay ay dhaqaaqaynin waxaana la soconaa 3 sano u dambeysay inay kaalinta labaad ay ku dhamaysteen afkana aad loogu hayo number 9 laakiin Arsenal laba dhaliyo ayay dhexdooda ku jirtaa oo marba mid ayay wada hadalla ay la gelaysaa oo shalay magaalada London waxay la kulantay ciyaaryahanka Victor Gyökeres kaasoo dadka socday ka mas'uulahay inay London yimideen hase yeeshee waxa yaab kale waxay tahay ciyaaryahankan Gyökeres oo aan la socon inuu deyn ugu yimid kooxaha hoose ee Championshipka Swansea iyo Coventry inuu heerkan uu gaaro oo ilaa 84 milyan lagu raadinayo ay Manchester United iyo Arsenal Juventus iyo kooxo badan oo Yurub ay aad iyo aad u raadinayaan si kastaba haatee ciyaaryahankan 39 gool ayuu dhalin oo wuxuu ka gool dhalin badan yahay Mbappe sanadkiisii ugu horeeyay Real Madrid 31 gool ayuu dhaliyay Mohamed Salah 29 gool ayuu dhaliyay Lewandowski 29 gool ayuu dhaliyay taas ayaa waxay keenaysaa ciyaaryahankan Victor Gyökeres in indhaha lagu wada hayo laakiin su-aasha waxay ka taagan tahay ciyaaryahankan oo Portugalka dheelo oo u dheelo Sporting Lisbon ma naqon karaa ciyaaryahan lacagtaas la geliyo goolasha oo ka dhaliyo Sporting in Premier League oo ka dhalin karo taas ayaa la isku haystaa waa gartay daysanow marka aynu eegno dhinacii Isbaanishka horyaalkaasi sheeko xiisala ayaa waxay ka taagan tahay ciyaaryahankii difaaca midigta Alexander Arnold funaanada 66 buu xidhan jiray markii uu Liverpool joogay hadda waxaa la leeyahay Isbaanishka sharciyadiisu ma ogola halkee wax marayaan sida aan la soconno Spain sharciyadooda ma ogolo oo waxaan la soconnaa kooxda hore oo la diiwaan geliyo in loo ogol yahay nambarka 1 ilaa nambarka 25aad laakiin maanta waxaa la siiyey nambarka 12aad ayaa la siiyey oo nambarka 66 oo caanka ku ah Liverpool taasna uu rabo inuu qaato taasoo sharciga Spain uu diidayay marka Alexander Arnold waxaan u malay doonaa in nambarka labaad ahaan ay u soo gateen laakiin Alonso oo sanadkan la wareegay waxaan u malay doonaa inuu isticmaali doono nambarkii 6aadna inuu isticmaali doono waxaa kaloo ayadana jira ciyaaryahanka Rodriguez oo Real Madrid u dheelo loo maleynayo inuu Premier League soo aado asigana waxay u badnaa doontaa inuu ku nagaado kooxda Real Madrid sababtoo ah waxaan isleeyahay Mbappe iyo Vinicius Junior labadaas ciyaaryahan ku soo xigay inuu yahay ciyaaryahanka Rodriguez mana u maleynayo inay iska soo day doonaan ciyaaryahankaas Rodriguez ee Brazilianka aad ayuu mahadsan yahay maxamed axmed daysane oo wararkii cayaaraha iyo xanta suuqa kala iibsiga ee qaaradda Yurub iga waramayay guud ahaana barnaamijkaasi ciyaaruhu waxa uu dambeeyey idaacaddii galabta oo axmed beder uu soo saaray anigoo nimcaan cismaanaan idila socodsiinayey tan iyo kulan dambena waxa aanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo